Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada kanaalkeena Som Universe. Fadlan hadaad ku cusub tahay kanaalka subscribe noo saar, like dheh si uu muuqaalkan u gaaro saaxiibo badan oo sidaada kala wanaagsan. Mahadsanid. Mowduuceena waxaan kusoo qaadan doonaa tallaabooyinka uu qaadayo qofka caruuska ah habeenka aqalgalka ah. Habeenka aqalgalka waa habeen qurux badan oo ay wada qaadan doonaan caruuska iyo caruusada. Haddaba diinteena islaamka waxayna bartay dhaqan walba oo ku saabsan dhaqamadeena. Xitaa habeenka aqalgalka wuxuu leeyahay aadaab u gaar ah oo loo baahan yahay inay maraan caruuska iyo caruusada, kaasi oo ay ku helayaan ajir badan oo kaga imaanayo dhanka xagga Allah subxaanahu wa tacaala. Walaalkayga muslimka ahow, dhalinyarada ahow ee ku soo wajahan habeenka aqalgalka, waxaa maskaxdaada ku taagan oo aad isweydiinaysaa sidee ayaad yeeli lahayd ama aad ula dhaqmi lahayd xaaskaaga habeenka aqalgalka. Haddaba ogow, ma jirto waddo gaar ah oo loo xadiday. Arooska iyo aroosada oo ay ku dhaqmayaan, balse waxaa lagula talinayaa inaad la timaado deganaan, farxad iyo reynreyn habeenada ugu horeeyo ee arooska, kaasi oo laga yaabo inuu baaqi sii ahaado inta noloshiina ka dhiman. Waxaa laga doonayaa marka aad tukato labada ragco ee sunnada ah, akhristana ducada sunnada ah, inaad bilowdo deganaan iyo dhiiranaan dhiiri ah ilaa heerka ugu macquulsan, adiga oo aanan ku degdegin galmada. Waxaana waajib ah inaad soo quweysato, isa soo qurxiso, isa soo carfiso, aadna xirato dharkaaga kuwa ugu quruxda badan. aad u bilowdo gabadha sheekooyin soo jiidasho leh, taasi oo aad uga hadlaysaan mustaqbalka iyo xaaladda guriga sida ay noqonayso. Ogowna inay gabadhu habeenkaasi rajaynayso galmada. Arrintaasina waa walwalka ugu badan ay maskaxda ku hayaan habeenkaasi arooska iyo aroosada. Walaalkayga muslimka ahow, waxaad la joogtaa xalaashaada. Allah subxaanahu wa tacaala wuuna idin daalacanayaa, raalli ayuuna idinka yahay, welibana wuxuu idin qorayaa ajir. Haddaba raac tallaabooyinkan soo socda. Tallaabada koowaad, gacantaada saar madaxa gabadha caruusada, kadibna dheh bismillaah, una duceey gabadha adigoo akhrinayo ducada ah: Allahayow, waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda iyo khayrka aad ku abuurtay, waxaana kaa magangelayaa sharkeeda iyo sharka aad ku abuurtay. Tallaabada labaad, waxaa sunno ah in caruuska iyo caruusada ay wada tukadaan 2 ragco oo sunno ah, kadibna ay Allah baryaan. Tallaabada saddexaad, waxaa sunno ah in caruuska uu u keeno gabadha waxa ay cunto ama ay cabto. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, muuminiinta qofka ugu iimaanka dhammaystirka badan yahay waa qofka ugu dabeecadda wanaagsan, sidoo kale ninka ugu dhimrinta iyo ugu naxariista badan xagga ehelkiisa. Waxaana shaki ku jirin dabacsanaanta iyo naxariista aad u muujisid gabadha inay ka baabi'inayso cabsida ay ka qabtay habeenka aqalgalka, ayna furayso waddo ay kula macaamiisho habeenkaasi quruxda badan, ama ay kula qabsato habeenkaasi. Tallaabada afraad, la ciyaar, la kaftan, la qosol. Tallaabada shanaad, waxaa sunno ah inaad akhrisataan ducadan inta aadan u tegin xaaskaaga. Ducadaasi oo ah: bismillaah, allaahumma jannibna shaydaana wa jannib ashaydaana maa rasaqtanaa. Haddii dhexdooda caruur ka dhalato, shaydaan weligiisa ma dhibaayo caruurtaasi. Tallaabada xigta, qofka caruuska ah waxaa u bannaan inuu xaaskiisa ugu tago qaab allaala qaabkii uu doono, laakiin uusan dhaafin halka Allah subxaanahu wa tacaala u xalaaleeyey oo ah farjigeeda. Tallaabada ugu dambayso, waxaa sunno ah qofka caruuska ah u baahdo xaaskiisa inuu dib ugu laabto, inuu weyse qaato si uu u helo firfircooni. Qubayska ayaase kasii wanaagsan. Mowduuceena maanta intaas ayuu ku egyahay. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen mowduucan. Intaan mowduucan mid lamid ay ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.